hooyadan iyo caruurteeda habeen ka hor waxay ahaayeen darbajiif. rajadooda ayaa ahayd mid hooseysay. waxaa laga soo bixiyay gurigii kira ahaan ay u deganaayeen markii ay waayeen qarashaadkii ay haysteen. waddo cidla ayaan kula kulannay, muuqaal ayaan ka soo baahinay, walaalo Soomaaliyeed ayaa ka soo jawaabay oo sida noloshooda u qurxiyay. alxamdulillaah, maanta dhan kasta nolosha way u wanaagsan tahay. kama fikirayaan waxay cunaan, guri ay deganaadaan, iyo sidoo kale dhar ay xirtaan. waxaan u mahadcelinayaa qof kasta oo ka soo qayb qaatay caawinta hooyadan iyo labadeeda cunug oo habeen ka hor ahaa darbajiif, balse caawa ay noloshooda sidan u qurux badan tahay. wallaahi wax ka wanaagsan ma lahan in duruufta iyo waayaha adag laysaga hiiliyo. hooyo shalay way ku adkeed inay hesho xitaa waxay ubadkeeda siiso iyo meel ay jiiftaan. maantana waa iyagaa dhowla caddaynayo. insha allahu tacaala carruurtana waxay dib ugu noqonayaan goobahoodii waxbarasho. booqashadeedii kadib, hooyo iyo ubadkeeda waxaan ku wareejiyey qarashaad aad idinka ku soo sadaqaysateen si ay ugu iibsadaan wax kasta oo ay u baahan yihiin. insha allahu tacaala waad ku mahadsantihiin walaalayaal sida aad hooyadan iyo ubadkeedii dayacnaa u soo garab istaagteen.